kusoo dhawaada war wixii caalamka inaga soo gaaray oo aad kala socotaan Bulqaas Media waxaana idin la socodsiinaya Cabdirasaaq Bulqaas. mahadsanid deeqasona gudoomiye ku-xigeenkii hore ee baarlamaanka dalka Kenya Faarax Macalin ayaa runta u sheegay dawladda Kenya xilli uu dhawaan waraysi siinayay telefishinka KTN ee dalka Kenya. Faarax Macalin waxa uu waraysigiisa ku sheegay in dawladda Kenya ahaan ay mar walbaba faragelin gudaha ah ay ku haysay Soomaaliya. waxaana tusaale u soo qaatay taageerada ay garab istaaga xad-dhaafka ah ee ay Kenya u fidisay Jubbaland ishaynta Jubbaland iyo dawladda Soomaaliya. waxaana ay la mid tahay buu yiri in gudoomiyaha Mandheera oo dawladda Kenya ku amartaagleeya oo Soomaaliya taageero ka hela. gabadh wariye ah oo wareysanaysay Faarax ayaa waxa ay xustay in Soomaaliya iyo Kenya xiriirkoodu uu ahaa mid fiican sida ay isaga kaashanayeen dhinacyada militariga oo kale balse waxa ay weydiisay waxa isbedelay waxana uu yiri. To be very honest you, we had everything to gain from that relationship, but we are losing one after the other. haddaan ku daacad warramo wax kasta oo aynu ka helnay xiriirkaasi mid baan u luminaynaa, but we are losing one after the other. And as a matter of fact, the Mira is not there anymore. ganacsigii Mirowga dib ugama jirayo halkaasi. aniga qudhaydu farbaa iga taagnayd Mirowga oo waxaan u aqoonsanahay daroogo. waxaan ku guuldaraystay inaan cod u helo baarlamaanka sanadkii 1993. laakiin xaqiiqdii labada wadan xulguftaasi way jirtay. waxaana intaasi aanu wadnay dhibaato waxyaabo micno darro ah. tusaale ahaan inaan qof iska laadno sabab la'aan oo ay ku jirto inaan ku qasabno in uu baaritaan ku soo maro Muqdisho iyadoo isla dhibaatadaasi ay ku soo marayaan Wajeer kadibna Nairobi. dhankeena diyaarad toos ah ayaan ku tagnaa meeshooda. muwaadiniinteenu sidaas ayay ku tagaan. fiisaha dalku galkana garoonka ayay ka qaataan. annagana waxaan ku qasabnaa in ay fiisa soo dalbadaan intay doontayna qaadataa. taasi waa sida aanu isku dhaafsanno xiriirkeenna diblomaasiyadeed, xiriirkeenna caalami, waana xeerka ugu muhiimsan. haddii aadan adigu tixgelinin taas ha ka filin iyagana in ay tixgelinayaan. iminka mowqifkooda way qaateen. waxaana u malaynayaa in ay muddo soo dulqaadanayeen. wax badan baanu la khasaaraynaa. mana jiri doonto khubaro dambo nooga imanaya xaggaasi oo nagala shaqaynaya dhinacyada kala duwan ee dhaqaalaheena. boqolaal kun oo Kenyaan ah baa xagga inaga jooga oo ka shaqeeya. ilaah baana og intay soo diraan. intee milyan oo dollar bay halkan u soo diraan. taas horteed waxaan halka ku haysanay lacaga maalgashi ah oo ay halka ay ku sameeyeen iyagoo qoysaskooda halkan keensaday. 200 oo kun oo qoys oo Soomaali ah ayaad ku arkaysaa oo Turkey u soo wareegay marka aad isla joogto. taasi waa taas. waxaanu ku guuldaraysanay inaan xaqiiqooyinkan oo dhan aanu qaadanno ee ah in ay kaabayeen dhaqaalaheena oo aan ilaashano xiriirkaasi muhiimka ah. taasi waa mid kaliya ogow. madaxweynihii hore Kibaki marnaba ma aqbali jirin in far la saaro. aad baan u xasuustaa in Kibaki iyo gudoomiyihii bangiga dhexe ee xilligaasi Dr. Dungu waxay dhihi jireen ha taabanina Soomaalida. dollar bay ina siiyaan. malaayiin dollar bay dhaqaalaheena ay ku kabaan oo qaraabadooda halkan ugu soo diraan. waxbay taraan bulshadeenna waxbana kuma siino. halkanay yimaadaan shaqo abuur bay ka sameeyaan. guryahay kireystaan. maanta Nairobi oo dhan soo arag sida ay guryaha ay u kireystaan. milkiilayaasha guryahana macaamiil guryaha ka kireysta maysan heleen. sidaa daraadeed lugahan iska tooganaynaa maalin walba, maalin kasta oo timaada. si kastaba ha ahaatee gudoomiye ku-xigeenkii hore ee baarlamaanka dalka Kenya Faarax Macalin ayaan dawladda Kenya waxba u qarinin isla markaana u cadeeyay waxyaabihii ay Soomaalida ay ku sameeyeen. arrintani ayaa waxa ay ku soo beegmaysaa xilli dawladda Kenya ay shaacisay in ay markaasi ay guddi u saartay xiriir ka xumaaday ee iminka kala dhaxeeya dawladda Soomaaliya. dalka Soomaaliya ayaa noqday dal cid walba oo adduunka ka mid ah oo guuldarooyin, musuqmaasuq iyo deganaansho la'aan dalkooda uu soo food saaro ay ku soo halqabsadaan. waxaana ugu dambeeyay halqabsigaasi midkii maanta ka soo yeeray Alain Bifani oo ahaa agaasimihii guud ee wasaaradda maaliyadda ee dalka Lubnaan mar uu la hadlayay TV-ga France 24. But we are going towards some kind of a Somalia a few years ago whereby there was no government, chaos in the streets,
and potentially a lot of instability to be exported to the rest of the world. laakiin waxaanu u soconnaa nooc ka mid ah Soomaaliya dhowr sano ka hor halkaas oo aysan ka jirin dawlad wadooyin fawda ah iyo xasilooni darro badan oo loo dhoofinayo adduunka intiisa kale. Alain Bifani ayaa si lama filaana isaga casilay dhamaadkii bishii June jagadiisii agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda ee Lubnaan xilkaasi oo uu hayay muddo 20 sano ah. Mas'uulkan sare oo hore ayaa waxa uu taageeray qorshe dib u kabasho oo ay taageerto IMF oo wadanka deynta badan lagu leeyahay. Laakiin tan waxaa ka hor istaagay aqoon-yahanada siyaasadda isaga oo la hadlaya France 24. Bifani waxa uu sheegay in qorshuhu uu ku saabsanaa in inta badan ay ka faa'iideystaan nidaamka oo ay wax badan soo kordhiyaan, balse waxa uu sheegay in guul darradeeda ay horseedi doonto sinaan la'aan weyn. Waxa uuna ka digayaa in Lubnaan ay u socoto nooc ka mid ah Soomaaliya dhowr sano ka hor. Booliska dalkaasi Australia ayaa baaraya wax xiriir ah inuu ka dhaxeeyo toogashada wiil Soomaali ah oo shalay boolisku ay ku toogteen dhabbada weyn ee Logan iyo dilal ka dhacay deegaanka Parkinson oo nafta lagu dhaafiyay 2 ruux oo waayeel ah. Booliska Queensland ayaa waxa ay baarayaan xiriirka labadan dhacdo ay yeelan karaan. Waa tan wiilka wadada lagu toogtay ee Soomaaliga ah oo ay boolisku sheegeen in uu ahaa taageere kooxda xagjirka ah ee Daesh iyo dhacdada kale oo iyana lagu dilay lamaana waayeel ah. Raaga Cabdi oo 22 jir ah ayaa boolisku waxa ay si bareera ugu toogteen wadada weyn ee Logan subaxnimadii Khamiista kadib markii boolisku ay goobta ay ugu yimaadeen isaga oo mindi gacanta ku sita. Saacado ka hor meedka nin 87 jir ah iyo haweeney 86 jir ah oo lamaana ahaa ayaa laga helay guri ku yaala Parkinson. Baleyska ayaa markii hore bilaabay baaritaanka dilka waxayna hadda baarayaan in Cabdi uu ku lug lahaa iyo in kale. Cabdi waa ay ka warhayeen hay'adda la dagaalanka argagixisada ayuu yiri ku-xigeenka taliyaha booliska federaalka Australia ninka lagu magacaabo Ian McCartney. Bishii May ee sanadkii 2019 ayay boolisku hore ay u qabteen Cabdi xilli uu doonayay in uu raaco diyaarad uu ku tagayo Soomaaliya isagoo wata tigidh hal dhinac ah. Marxuumka oo aanu ka shakinay in uu ku biiro Daesh ayaa isku dayay in uu ka dhoofo garoonka diyaaradaha ee Brisbane kuna sii jeedo Soomaaliya ayuu yiri McCartney. Waa la joojiyay oo waa la xiray isagoo looga shakiyay isku day gelid dal shisheeye. Marxuumka waxaa la sii daayay iyada oo aan wax dambi ah lagu soo oogin sababo la xiriira caddayn la'aan. Cabdi waxaa lagu soo oogay dambiye ciqaab ah sanadkii hore oo ay ka mid yihiin isku day in uu baal maro wadada cadaaladda iyo in uu markaasi u hoggaansami waayo amarka, laakiin damiin ayaa lagu sii daayay kadib markii uu xirnaa in ka badan 400 oo maalmood. Ku-xigeenka taliyaha booliska Queensland haweeneyda lagu magacaabo Tracy Linford ayaa waxa ay sheegtay in shuruudaha damaanadda ninkan ay ka mid ahayd xirashada aaladda GPS-ka ee lagula socdo dadka, taasi oo u muuqatay in uu jaray toogashada ka hor. waxaana loo sheegay xalay bay tiri in ay u muuqato in xoogaa faragelin ah lagu sameeyay aaladaasi raadraaca. Saraakiisha ayaa booqday ciwaanka guriga ninkan 2 jeer waxayna ay baareen dhulka baadiyaha ah ee aaladan GPS-ka ay sheegtay, laakiin ma aysan helin ninka iyo aaladda. Linford waxa ay tiri in la toogto ninkan ayaa ahayd fursadda kaliya ay u bannaanayd booliska markii uu Cabdi uga hor yimid wadada weyn isagoo mindisita. baaritaano ku saabsan xiriir kasta oo suuragal ah inuu ka dhaxeeyo Cabdi iyo dilka Parkinson ayaa socda. Madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence ayaa si toos ah TV-ga iyadoo laga daawanayo looga siiyay talaalka coronavirus isagoo dhageystayaasha iyo dhaqaatiirta ku yiri waxba ma dareemin. Aqalka cad ayaa sheegay in ujeedka talaabadan ay ahayd in kor loo qaado badbaadada iyo waxtarka talaalka iyo in kalsooni laga dhex abuuro dadka Mareykanka ah. Xaaska Mr. Pence iyo dhakhtarka qaliinka General Jerome Adams ayaa iyagana lagu siiyay talaalka munaasabada aqalka cad. Isniintii Mareykanku waxa uu bilaabay inuu soo saaro talaalka Pfizer. Waa talaalkii ugu horeeyay ee laga ansixiyo Mareykanka, waxana uu waxtarkiisa lagu sheegay in 90% uu ka hortago cudurka COVID-19. 3 milyan ee ugu horeysa ayaa loo qaybiyay goobo ku yaala 50 gobol ee Mareykanka. Madaxweynaha la doortay Joe Biden iyo xaaskiisa Jill ayaa heli doona talaalkani Isniinta. Afhayeen ayaa u sheegay warbaahinta Mareykanka sidaasi.
in ka badan 300 oo wiilal iskuuley ah ayaa dib ula midoobay qoysaskooda toddobaad kadib markii laga afduubtay iskuulkooda oo ku yaala waqooyi galbeed dalkaasi Nigeria. wiilashu waxa ay bas ay ku yimaadeen magaalada Katsina ee xarunta gobolka isla magacaas, halkaas oo uu kula kulmay madaxweyne Muhammadu Buhari. iyagoo daalan qaar baa wali xirnaa dharkoodii iskuulka, halka qaar kalena ay wateen bastayaal cawlan. maamulka gobolka ayaa hadda sheegaya in caruurta ay afduubteen burcad deegaanka ah. kooxda xagjirka ah ee Boko Haram ayaa sheegtay in ay markaasi ay ka dambeeyeen afduubka ardaydan, laakiin khubarada qaar ayaa ka shakisanaa maxaa yeelay afduubku waxa uu ka dhacay meel ka baxsan aagooda caadiga ah ee howlgallada. dhagaystayaal, intaasi waxa inooga dhan warkii caalamka oo aad kala socoteen Bulqaas Media. inta aan warkan oo kale aynu ku kulmi doono waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo. fadlan ha iloobin haddii aad ku cusub tahay channelka Bulqaas Media inaad subscribe aad saarto, amaba page-ka Facebook aanu ku leenahay ee Bulqaas Media in aad follow aad dhahdo. haddiise aad tahay macmiil soo noqday, fadlan ha naga iloobin like-ta, share-ta iyo sidoo kaleba wixii fariimo ah in aad noogu reebtid dhinaca commentiga. waad mahadsantihiin.